wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda isked madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland ayaa soo saartay warbixin ku saabsan iskuulada dawladda tayadoodu ay kor u kacday oo imtixaanada sanadkan ay ka horeeyaan marka la barbar dhigo kuwa gaarka loo leeyahay. Waxa kale oo ay sheegtay wasaaradda in dhanka miyiga waxbarashadu ay iyana kor u kacday. agaasimaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Axmed Abukar ayaa hadda qadka magaalada Hargeysa toos ugu jira. Axmed, soo dhawow, bal nooga waran tayada waxbarashada ee iskuulada dawladda sababaha ay kor ugu kacday. aad iyo aad baad mahadsantihiin BBC walaal waxa weeyaan iskuulada ay bulshadu leedahay ama iskuulada dawladdu sanadkan imtixaankii qaran ee la qaaday jamhuuriyadda Soomaaliland markii la qiimeeyay waxa soo baxday iskuulada dawladdu celcelis ahaan ama average marka la eego inay ka tayo sareeyaan iskuulada kale marka private-ka markii la baaray sababtu marka waxay u badan tahay wax weeyaan kow wasaaraddu waxay samaysay kuliyadda tababarka macallimiinta oo macallimiinta waa la tababaray waxa kale oo ay wasaaraddu bixisay oo xukuumaddu bixisay marka agabkii waxbarashada ardayda la siiyay dugsiyada dawladda buugaag la siiyay waxa kale oo marka sababaha ka mid noqon kara ama ka mid ahba tirada ardayda dugsiyada dawladda dhigtaa ee fasalka fadhiya yani markaan ka hadlayno tirada ardayda fasalka fadhida inay ka yar tahay tirada ardayga fasalka dugsiyada gaarka fadhida waxyaalahaas runtii ayaa sabab u ah inay kala sareeyaan. waa gartay Axmed, marka laga hadlayo waxbarashada waxaad ku darteen miyiga arday badan oo miyiga ku noolna waxbarasho ma haystaan marka taasee ku qiimaysan iyadana. walaal horta waxaan la qiimeeyay waa natiijadii imtixaankii u dambeeyay la qaaday sanad dugsiyeedkan imika la qaaday weeyaan ardayda waxaa la isbarbar dhigay ardayda miyiga natiijoodii ka soo baxday dugsiyada ardayda miyiga ku jira celcelis ahaan iyo kuwa magaalada la isbarbar dhigay celceliska ama average-ka waxaa ka soo baxay markaa ardayda miyigii inay ka tayo wanaagsan yihiin ardayda dugsiyada magaalada markaa arday haddii la isku barbar dhigay inay kala duwanaato laga yaabaa laakiin tan waa iskuul iyo celcelis weeyaan natiijadan soo baxday. waa tahay Axmed, inta badan arday badanaa soo baxday iskuulada ilaa jaamacadahaba waxaana lagu dhaliilaa Soomaaliland iyo meelo badan oo Afrika ka mid ahba badanaa ardayda farsamadii gacanta ma bartaan marka adinka taa maxaad ka leedihiin maadaama ardayda aysan soo bixin iyagoo yaqaana farsamadii gacanta. walaal horta farsamada gacanta annaga mudnaanta koowaad bay nagu jirtaa qorshaha qaranka ee wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda mudane Muuse Biixi Cabdi hogaamiyo waxaana qayb ka tahay markaa qorshaha xisbiga kulmiye qayb ka tahay marka annagu imika waxa noo qorshaysan dugsi kasta oo secondary oo Soomaaliland oo waxbarashada tooska lagu barto in lagu daro xirfad ama laba xirfadood oo tusaale ahaan ardayga jooga markaa lagu haya in la baro markaa sida loo kalluumaysto ama sida beeraha loo falo kadib ardayga soo secondary ka baxay oo markiiba shaqo tegi karayo kadibna uu la soo bixi karo noloshiisa waxaana kaloo imika jira markaa dugsiga farsamada gacanta oo shaqeeya dugsiga Burca ka mid ah oo dugsi caan ahaa Jarmalka dadka badan yaqaanaan dugsiga farsamada gacanta Hargeysa shaqeeya dugsi arday ku yaala farsamada gacanta Sool ku yaala jira waxa shaqeeya dugsigii Berbere farsamada gacanta aad baad mahadsantahay Axmed agaasimaha waxbarashada ee Soomaaliland waad mahadsantahay Axmed.